garsoorku waa qaybta saddexaad ee dawladda haddii aan garsoor adag jirin garsoor cadaalad ah jirin garsoor dadku ku soo hirtaan jirin dawladnimo ma jirto waxaad ogtihiin maanta garsoorkeenu inuu ay kala tageen waxaad ogtihiin inay dadku kalsooni ku qabin waxaad ogtihiin inay dhuntay kalsoonidii dadka ee garsoorka haddii ilaahay idmo oo anigu aan ku guulaysto waxaan soo celinayaa kalsoonida dadka iyo garsoorka waxaan u samaynayaa garsoorka waxa ay u baahan yihiin marka loo eego hadday noqon lahayd mushahar hadday noqon lahayd agab lagu shaqeeyo hadday noqon lahayd dhismayaal intaba waayo garsoorka haddii aan la sharfin la dhisin waa dadkii hay-addii ugu sarraysay waddanka oo xaqsoorka iyo loogu tegi lahaa iyo inay ummadda u cadaalad fasho haddii ayaan iyadu cadaalad loo falin oo iyadii cadaalad loo samayn sideebay iyadu cadaalad ku samaynaysaa waan u dhammaystirayaa haddii ilaahay ugu guuleeyo wax kasta ay u baahan yihiin garsoorku waxaana ka dhigayaa kuwa ugu sarreeya oo dadku jeclaadaan oo dadku ay cadaaladooda iyo maaragtay xaqsoorkooda ay ku soo hirtaan inta dhiman garsoorka sida maxkamadda dastuurka ee waddanku u baahan yahay oo weli ka maqan run iyo rajaloodiya dadkuna badi way rabaan siyaasi rusheegi kara rajana oo abuuri kara